maryan muxudiin maxamuud waa gabar Soomaaliyeed oo ku dhaqan Shilaanbood gobolka Shabeellaha Hoose laakiin si barnaamijka ku cilba codkaaga caawi ama faafi calan qaran ay uga qayb gasho ay u timid guri qaraabadeeda ah oo ku yaal magaalada Muqdisho. markii aan booqanay waxay noo ahayd qof caadi ah oo caafimaad qaba waayo muuqeeda marka la arko uma muuqato dhibane laakiin qiso 10 sano ka hor ku dhacday ay nooga sheekaysay waxaana noo soo baxday inay tahay qof qarsaday xanuun in lala qaybsado ay ahayd. maryan waxay guursatay iyadoo dhalinyar bisha koowaad ee arooskeeda ayaa xabad wiiftaha ku dhacday waxayna naafo ka noqotay dhammaan qaybaha hoose ee jirkeeda. waxaa la geeyay cisbitaallo ay ka mid ahaayeen Xayaat iyo Kaysaney 2 bilood oo cisbitaalka jiiftay kadib waxaa laga soo saaray cisbitaalka waxaana loo sheegay inaan waxba looga qaban karin gudaha dalka Soomaaliya. markii guriga reerkeeda la geeyay waxaa qoyskii qabay ay u dhaxday isaygeedii go'aansadeen in la furo waxaana halkaa ka soo gaaray dhaawac niyad jabiyay oo ku sii siyaadiyay xanuunkii hayay. haddii gurigeedii ay ku riyoonaysay inay farxad ku noolaato uu qadarta eebbe darteed u burburay haddii shakhsiga ay kala soo baxday dhammaan ragga dunida uu dalaaqay maryan waxay talada saaratay Ilaahay waxayna sugaysay ilaa maanta cid xanuunka la qaybsato oo u diirnaxda. maryan ma istaagi karto ma socon karto suuliga ma tegi karto kama war hayso kaadi saxaro iyo wax ka soo dareenka qaybaha hoose ee jirkeeda ah laakiin alxamdulillah waxay qabtaa rajo ah in dalka Jarmalka haddii la geeyo caafimaadkeeda wax laga qaban karo. qof kastoo Soomaali ah gaar ahaan jaaliyadaha dibadda aan u gurmano walaasheen oo garab istaagno ganacsatada maalqabeennada siyaasiyiinta hay'adaha gaarka ah iyo kuwa danta guud waxaa dhammaanteen waajib naga saaran yahay inaan walaasheen ku caawino hadba wixii aan awoodno. maanta haddii aad caafimaad qabto ogow gabar waa kula dhalatay waa kuu dhaxday waana ku dhashay sidana way noqon kartaa haddii adiga arrinta ku haysan lahayd hubaal aad baad u jeclaan lahayd in lagu garab istaago oo aadan cidla dareemin. maantana maryan waa sida calan qaran waa caawiyaha bulshada wuxuu isku xiraa dhibanaha iyo walaalkiis muslimka ah. ballanteenu waa caawi ama faafi ku cilbax codkaaga. magacaygu waa maryan muxudiin maxamuud saa'iideedii waxaan ahay qoftaan waxaan ku dhashay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Shilaanbood laakiin Muqdishona waan joogi jiray dhibkaan meesha ugu soo gaaray anigoo guursado gabar yar siinay suuq adeeg ka doonaya dhibkaan igu dhacay markii laga qaaday isbitaal Xayaat la geeyay waxba laga ma qaban Kaysaney la geeyay markii la dadaal dhaqaatiirta wax boog iga dhayeen waxba uma qaban karnay gabadha neerfeena qatay oo dalka dibadiisa hadii ay qaadi kartiin anagana waqtigaas ma awoodin inaan tagno sidii aan iskaaga noolaa alxamdulillah Ilaahay waxba iga ma haleyn waa la qabsaday noloshayda waa ku noolaa alxamdulillah oo bacda operation kala angalo kaadida ugu xirantay qaliin aan igu sameeyay kaadi haasta dhagax weyn aan leeyahay bixi alxamdulillah idan waa ka noolahay waana ka fiicanahay haddana gobolkaas aan ka imaaday wiilashaan aan la soo xiriiray xabadda waxay iga dhacday lafta dhabarka ee dheer korkeeda markii garbaha saan ku aadayso meeshaan ka soo baxay hadii ku jir leedo way ku dhibaatay leedahay laakiin alxamdulillah Ilaahay waa iga saaray wayda iga baxay. xabadda walaa qof shakhsi ah igu danta xabadda igu ma dhufan xabad wiifto waa la leeyahay waa dagaal jireen meel dheer ka dhacaysay aartiis aan sabab isbitaalka waxaan ku jiray muddo 2 bilood maalinta laga soo saaray intii imid Ilaahay oo naxariistooda dadkay meeshaan joogay u yeereen reerkii inta isbitaal ku jira xaal aan aksaas noqoto waxba ku ma tareysay hawga mid fiican ama ka raadsataa marka bal isbitaalka ka soo baxda lagu heshiiyay isbitaalka maalinta laga keenay adeerkay ala wacay waxa la dhahay kitaabka ameerkeeda waa u geey waxba kale uma hayn gabadhaas waa furno sheek alxamdulillah idan qadartay ka mid tahay xanuunka markaas xabadii igu dhacay taas xooga iga xanuun badnay oo la igu nacay waxyaabo Ilaahay keenay oo qadarta marka dhaawaciga 10 meelahaas kama yaro inta aan saan ahay
shalaanboodna waxaanu aadnay waa dagaalaha wadankii ka dhacay meeshaas waa ku qaxnay waxaanu u qaxnay inaan markayna hore asali ku ahayn hadaa tagna meesha aan degnano xoogaa magaaladii loo soo noqdanay guriyii marka qaali laga dhigo qolkii aan ku degnay $10 oo kale waqtigaas $50 in laga dhigay anagana sabab jira aan soo naqaweynay ana been anagoo yariiro dhintarto agoonimaan ku soo kornay hooyadayna noo xamaali jirta khayr Allah siiyo markii aan qaxayna xataa ida xamaalaysay meeshaasaan degnay waxaan soo naqaweynay sabab jira awgeed guriyii qaali laga dhigay noloshu isbedeshay gobolka saasaan u joognaa wax i caawiyo hadda wax ii qabto ama meel i geeyo wili ma arkin hal qof aan niyadii geliye qaraabo ahaan way tahriibaysa 2008 meelaas hayda marna baxa hadda meel tago waxba ku qaban doona isoo duceey naag weyn oo hadii la fiirshay dhali kartona way ahayd way tagtay alxamdulillah waa muddo joogtay meeshii iyada sharci ka weyso qaxooti ku noqoto Holland فاقصات تجار مال اسكديبت ولا سو celsho sharciga la siiyay waxa dhaad gabar curiyaan ay ga maqan saidii sheegtay oo aan soo korsado iyada 4 jir aan wada ka helay kadibna markay naag weyn noqotay qaan gaartay ee guursatay ninkii nacay igu soo celiyay haddana aan iyada haysto ilmahayga ninkeyga iga maqan waxay ii sheegtay anigu ma ogi warqada ii soo dirtay waxay tiri waa la ogolaaday dacwadan sheegay oo ku qaada ka soo tag shalaanbood inta imid أنا أودين حتى باسبور كذا إيجوي أنا إيجابي مركز عاون لهاد يوغندا عادي سينا نتري باسبور كأنا لسي يوغندا دي ما دو دعوة ودي منطقة مع مدة سوقات كلي ده إيدي ماني والإسكالة بيتر عد مكرسارنا كرتيت مايا عد مكرسارنا كرتيت يعني مدة على صوب حلا ده ودي منطقة هاي إسكالة بيتر ولا بتلاتي يلا بدي مارسلي وصور دافع عن ليدن أقولاد وصوب بحسي على إذن كربا سفارة داس يعني المهي يو أضوغي يعني مركا أنت إمت قبل كلا إذن سيد عني وقود دي والد أهد أنا قد أمتي سفارة يوغان لو كنا نقن في سي وانا مسود ديدي كبعد أضوغ حولاني وبحروا الكاميرا نيرو دعوة بدلا يتري إذن عن دول كاميرا المهي وعوضنا هذه يعني كل مقاعد كرقف سانا تاني قاعد بيك باور صار مكبح كارو كواسكي حريصة iska haray wiilal hadda idinkoo kala aha ku jireen wiilasha baxay iyada dhashay way caawi kareen laakiin way reebeen iidan waxay ugu maslaxday inaan soo raadsado fiisa Kenya aan ka daba tago iska laabtay shalaanbood soonkii iyagii hadda meesha daraaday galeen Holland ka bacdi waxaan dhahay dhulkaan soo maraa hadda wax ii haysid si alaalsay ugu qaadato ilaa fiisa Kenya dii la helan qof iga caawinaysa ma haysan qarashki waa dhulkaan soo maraan muslim kale dhulka qarashkiisa iga bixiyaan ii gabadhii aan raadsana raadsay tir soo maraan wax qarash ku ma hay laakiin di dacwadaas la ogolaaday taas un baa ku qaba kara inta imid dhulkii ala maraha liiri ma istaaqfurlo markaan naqane inta naqane koor xooga barbaleen wixii meeshina ma awoodi in aan iga taga qarash ma haysti ma soo karo iidan mar walba waxa uu barnaamijka in wax ii tarayso laakiin wax qarash aan ii haynin wada sheekaysigeyga iyo isla sheekaysigeyga sokor ay u dhacday haddana ana aad inta uu xanuunsado jooga xaliigay istaal Carafa dhakhtar jooga waxay dhahay hadaa saak wax soo cunin sokor qabta subaxnimeedan wax uu cun waa cadays waa tagay waa laga baar kaada laga baaray dhiiga laga baar sokor qabta waxay sokortaas kugu yimaado barbaleen aadiis gelisay maayna tii dhaxasheed amba wax laga qaadanayo dadka ma aha iska yaray barbaleenka waa iska laabtay soo bixay tiri hada dhul mari karti soo mar wiil aan diriseen xagga naagtida America jirto dhaay 25 bisha 9aad aleega raba Kenya inaan joogo fiisan waa waay dhulka maraa waa ku raacahanda ay caawinaysaa adii gabadhan ila dhalatay gabadhan kalena adeerkeeda la hadda iidan waxaan dhahay baladii qarash la helay dhulka adna qad iga caawi aan tagno markii aan u sheegay inaan soo baxay inta soo dadana aan diyaarsaday ee qadka waxay isoo dhigtay dacwadu waa ka saaray iska joog iska joogay iidan hadda ilmi waa qaadatay mana xariirno qadku waa ku arkaa laakiin ma ilaahay baa wax bixiyo dadkana saa caawiyo taasana ugu wanaagsan
tan labaad ummadda muslimiinta meel walba joogaan intii daawanayso ama ay maqasho waxaan ka codsanaynaa wax ay qabtaan telefoon lambarkeyga dii laygala soo xiriira waxaa waaye furaha 5 ama furaha 2 69 midka markaas ii shida dibadiisa haddii aa u qaadi kartiin annagana waqtigaas ma awoodin inaan tagno sidii iskaaga noolaa alxamdulilah ilaahay waxba igama haleyn waa la qabsada noloshayda waa ku noolahay alxamdulilah kabacdi operation kalaan galo kaadida ay ugu xirantay qaliina laygu sameeyey kaadi haasta dhagax weynaa layga bixiyay alxamdulilah idan waa ka noolahay waana ka fiicanahay haddana gobolkaasaan ka imaaday wiilashaana anaa la soo xiriiray xabadda waxay iga dhacday lafta dhabarka ee dheer korkeeda marka garbaha saan dhow ku aadayso meeshaan ka soo baxay marka haddii kugu jir leedahay way ku dhibaatay leedahay laakiin alxamdulilah ilaahay baa iga saaray hooyada iga baxday xabadda walaa qof shakhsi ah hadaan igu danta xabad iguma dhufan xabad wiifto waa la leeyahay waa dagaalo jireen meel dheer ka dhacaysay hortiisa aan sababsay isbitaalka waxaan ku jiray muddo 2 bilood maalintii laga soo saaray intii imid ilaahay oo naxariisto wadaad adeerkay meeshaan joogay u yeereen reerkii inta istaal ku jira xaal anaagsaas naqato waxba kuuma tareysay xoogaa mid fiican ama ka raadsataa marka bal istaalka ka soo baxda lagu heshiiyey istaalka maalintii laga keenay adeerkay ala wacay waxa la dhahay kitaabka ameerkeedu waa u geey waxba kale uma hayn gabadhaas waa furno sheek alxamdulilah idan qadartay ka mid tahay xanuunka markaas xabadii igu dhacay taas xoogaa iga xanuun badneed oo la igu nacay waxyaabo ilaahay keenay oo qadarta horta dhaawiciga 11 meelahaas kama yaro inta aan saan ahay shalaanboodna waxaan u aadnay waa dagaalaha wadankii ka dhacay meeshaas waa ku qaxnay waxaan u qaxnaynaa markayna hore asali ku ahayn hadaa tagna meeshii aan degnano xoogaa magaaladii loo soo noqdanay guriyii markii qaali laga dhigo qolkii aan ku degnay $10 oo kale waqtigaas $50 in laga dhigay anagana sabab jira aan soo naqaweynay ana been anagoo yar oo dhinto agoonimaan ku soo kornay hooyadayna noo xamaali jirtay qeyr la siiyo markii aan qaxayna xataa ida xamaalaysay meeshaasaan degnay waxaan soo naqaweynay sabab jira awgeed guriyii qaali laga dhigay nolosha isbedeshay gobolka saasaan u joognaa wax i caawiyo hadda wax ii qabto ama meel i geeyo wili ma arkin hal qof aan niyadii ii geliyay qaraabo ahaan way tahriibeysa 2008 meelaas xayda marna baxa hadaa meel tago waxba ku qaban doona ay soo duceey naag weyn oo hadii la fiirshay dhali kartona way ahayd way tagtay alxamdulilah waa mudday joogtay meeshii iyada sharci ka weyso qaxooti ku noqoto Holan waa ka soo tagtay Jarmal iska dhiibtay waa la soo celshay sharciga la siiyay xidhada gobol curyaan ay ga maqan sa'iidii sheegtay oo aan soo korsado iyada 4 jir aan wada ka helay kadibna markay naag weyn noqotay qaan gaartay ee guursatay ninkii nacay leegu soo celiyay haddana aan iyada haysto ilmihayga ninkeyga iga maqan waxay ii sheegtay anigu ma ogi warqada ii soo dirtay waxay tiri waa la ogolaaday dacwadan sheegay oo ku qaadaa ka soo tag shalaanbood intaa imid ana awoodin xataa baasaboorka dada ii gooyay ani gabadhi markaas caawin lahayd Uganda aadisiinayna tiri baasaboorkeena la siiyay Uganda dacwada way dhimantaa ma muddo soo qaadka liidaha ii dhimanay wal iska laabay tiri cid ma kor saarnaa kartid maya cid ma kor saarnaa kartid yani muddada hala soo baxala dhaaway dhiman tahay iska laabay tiri waa laabtay 22 Maarsadii soo dhaafay aan leedin ogolaaday waa soo bixisay aan leedin ka rabaa safaaradaas yani ilmihii iyo adoogii yani marka intii imid gabar kale iidana sida anigu ugu dooday waalid u ahayd aan naga dhuumatay safaaradda Uganda oo kuna naqan fiisiyo aan soo diiday ka bacdi adoog wuxuu dhaani waa baxa dhulka mara neerooda dacwadu bedelay tiri iidana aan dhulka mara ilmihii waa wadanaa adigan yani kuma qaadi karo qof saanaata aniga qaad dhig baawur saar ma ka bixi karo waa iska hareysa waa iska haray wiilal hadda idinkoo kale aha ku jireen wiilasha baxay iida dhashay
way caawi kareen laakiin way reebeen iidan waxay igu maslaxday inaan soo raadsado fiisa Kenya aan ka daba tago aska laabtay Shalaambood soonkii iyagii hadda meesha daraaday galeen Hollanti ka bacdi waxaan dhahay dhulkaan soo maraa hadda wax ii haysid si alaalsay ugu qaadato ilaa fiisa Kenya dii la helan qof iga caawinaysa ma haysan qarashki waa dhulkaan soo maraa hadda muslim kale oo dhulka qarashkiisa iga bixiyaan ii gabadhii aan raadsana raadsay tir soo maraan wax qarash ku ma hay laakiin di dacwadaas la ogolaado taas baa ku qaban karaa inta ayimid dhulkii ala maraa haliir ma istaghfirlo markaan naqane intaan naqane koor xooga barbaleen wixii meeshina ma awoodi in aan igi taga qarash ma haysti ma soo karo iidan mar walba xog barnaamijka in wax ii tirayso laakiin wax qarash ii haynin wada sheekaysigeyga iyo isla sheekaysigeyga sokor ay ugu dhacday haddana ismaana aad inta uu xanuunsado jooga xaliigay istaal Carafaad dhakhtar jooga waxay dhahay hadaa saak wax soo cunin sokor qabta subaxnimeedan wax uu cun waa cadays waa tagay waa leega baar kaada laga baaray dhiiga laga baar sokor qabta waxay sokorta isku yimaado barbaleen aadiis gelisay maayna tii dhaxasheeda amba wax laga qaadanayo dadka ma aha iska yaray barbaleenka waa iska laabtay soo bixay tiri ada dhul mari karti soo mar wiil aan diriseen xagga naagtida Amerika jirto dhaay 25 bisha 9aad aa leega rabaa Kenya inaan joogo fiisan waa waay dhulka maraa Maryan Muxudiin Maxamuud waa gabar Soomaaliyeed oo ku dhaqan Shalaambood gobolka Shabeellaha Hoose laakiin si barnaamijka ku cilba codkaaga caawi ama faafi calan qaran ay uga qayb gasho ay u timid guri qaraabadeeda ah oo ku yaal magaalada Muqdisho markii aan booqanay waxay noo ahayd qof caadi ah oo caafimaad qaba way muuqeeda marka la arko uma muuqato dhibane laakiin qiso 10 sano ka hor ku dhacday ay nooga sheekaysay waxaana noo soo baxday inay tahay qof qarsaday xanuun in lala qaybsado ay ahayd Maryan waxay guursatay iyadoo dhalin yar bisha koowaad ee arooskeeda ayaa xabad wiiftaha ku dhacday waxayna naafo ka noqotay dhammaan qaybaha hoose ee jirkeeda waxaa la geeyay cisbitaallo ay ka mid ahaayeen Xayaat iyo Kaysanay 2 bilood oo cisbitaalka jiiftay kadib waxaa laga soo saaray cisbitaalka waxaana loo sheegay inaan waxba looga qaban karin gudaha dalka Soomaaliya markii guriga reerkeeda la geeyay waxa qoyskii qabay ay u dhaxday isaygeedii go'aansadeen in la furo waxaana halka ka soo gaaray dhaawac niyad jabiyay oo ku sii siyaadiyay xanuunkii hayay haddii gurigeedii ay ku riyoonaysay inay farxad ku noolaato uu qadarta ee badarteed u burburay haddii shakhsiga ay kala soo baxday dhammaan ragga dunida uu dalaaqay Maryan waxay talada saaratay Ilaahay waxayna sugaysay ilaa maanta cid xanuunka la qaybsato oo u diirnaxda Maryan ma istaagi karto ma socon karto suuliga ma tagi karto kama war hayso kaadi saxaro iyo wax ka soo dareenka qaybaha hoose ee jirkeeda ah laakiin alxamdulillah waxay qabtaa rajo ah in dalka Jarmalka hadii la geeyo caafimaadkeeda wax laga qaban karo qof kastoo Soomaali ah gaar ahaan jaaliyadaha dibadda aan u gurmano walaasheen oo garab istaagno ganacsatada maalqabeennada siyaasiyiinta hay'adaha gaarka ah iyo kuwa danta guud waxaa dhammaanteen waajib naga saaran yahay inaan walaasheen ku caawino hadba wixii aan awoodno maanta haddii aad caafimaad qabto ogow gabar waa kula dhalatay waa ku dhaxday waana ku dhashay sidana way noqon kartaa haddii adiga arrinta ku haysan lahayd hubaal aad baad u jeclaan lahayd in lagu garab istaago
oo aadan cidlo dareemin maantana Maryan waa sida calan qaran waa caawiyaha bulshada wuxuu isku xiraa dhibanaha iyo walaalkiis muslimka ah ballanteenu waa caawi ama faafi ku cilbax codkaaga magacaygu waa Maryam Muxudiin Maxamuud saa'iideedii waxaan ahay qoftaan waxaan ku dhashay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Shalaambood laakiin Muqdisho waan joogi jiray dhibkaan meesha ugu soo gaaray anigoo guursado gabar yar siinay suuqa adeeg doonay dhibkaan igu dhacay markii laga qaaday isbitaal Al-Hayaada leegay waxba leeyahay qaban keensanaya leegay markii la dadaal dhaqaatiirta wax boog iga dhayeen waxba uma qabo karnaa gabadha neerfeena qatay